wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Professor Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon ayaa beeniyay wararka lagu daabacay wargeyska The Reporter ee ka soo baxa dalka Itoobiya. Wargeyska oo soo xiganaya saraakiil wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ka tirsan ayaa qoray in maamulka cusub ee uu madaxda ka yahay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu garab maray Somaliland heshiisna la galay dalalka kale ee gobolka arrintaasina ay Somaliland welwel ka muujisay. haddaba Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa kula xidhiidhay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Professor Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon isagoo weydiiyey sababta mas'uuliyiinta wasaaradda ka tirsan ay warbixintan u bixiyeen haddii aanay wax jirin. marka horeysa waxaan kuu sheegayaa waxa weeye xiriirka Somaliland iyo Ethiopia meeshii ugu wanaagsaneyd buu maraya waxa laayo wax ama kala shakiya ama kala fogaanshaha ama isdiidmaa ama wada shaqayn la'aan ah oo ka jirta haba yaraatee ma jirto waxa weeye badanaa saxaafaddu situations ama balaawaal badan bay iska sameeyaan oo waxbay iska haweeneydu bay eegeeyaan oo dabeedna waa iska iyaga abuura hadda qolyahan wasaaradda ka shaqaynaya ay maxay tahay raacayaan ay leeyihiin ama sharci cad iyo asaal ahaan runtii way ka samaynayaan iyagu baa inta niman safiir oo waxaan beeshii oo dabeedna saadida iyo si ay ugu yeeraan wararka ay bixinayaan marka saacadda wasiir adiga ilaaliya ma waxa aad leedahay shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland wargeyska marnaba lama ay hadal mise waxa aad leedahay war baan siinayn laakiin sheeko waa dhex martay sheekooyin waa dhex mareen nimanku way yimaadeen wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda maxay warfaafinta iyo wasaaradahaas oo dhan way tageen waa laba cashimayo waa laba fadhiiso waa la sheekaysanay waa la soo dhaweeyay saxafiyiinta hadda asaarka dhaho way loo yimaadaan laakiin wax rasmi ah oo idina siisay ma jirin official warka rasmigeena waa kan anigu kugula hadlayo wasaaradda afkeeda kugula hadlayo iska sheekaysi shaah la iska wada cabo meel la fadhiisto laga yaabo inay iyado sheekooyinka qaarkood iyagu qaaray hadday doonaan hordhigaya dadka ama iskaga hadhadlayeen inay jiraan laakiin haba yaraatee wax arrimaha sidaan kuu sheegay jira oo ama ay shaqaalaha igu qabaan ama wasaaraddeedu qabso ama dowladdu ay qabso Somaliland oo ku dhex jira oo dhibaato ah ama isfahan waaya ama kala fogaansho oo Somaliland iyo Ethiopia dhex yaalla haba yaraatee ma jiraan waayo si fiican baan ku fahmay sacaadata wasiir waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo su'aal ah marar badan madaxda dalalka gobolka hadday noqoto Soomaaliya Ethiopia Eritrea iyo Djibouti waa ay shireen shirarka waxaa ka mid ahaa marar badan oo laga hadlay ammaanka xeebahan badda cas oo dabcan Somaliland hadda xeebtu ay marto marnaba lama arag iyada oo Somaliland ay kulamada ka muuqato maadaama aad gobolkii ku jirtaan shirarka aad ka muuqan weydeen miyaan markaa yar keenaynin shaki sababta la idinka reebaya waxay tahay waa arrintaa waan ka hadlay maanta waxaan ku yidhi waan soo hadalqaaday waxaan ku yidhi ciddii isku dayda mataqaanaa inay Somaliland dhinac marto xaqiiqada ka buuxdo in Somaliland waa dalalka ka mida Horn of Africa ku yaalla ama geeska Afrika ku yaalla meelaha ugu istiraatiijisan ee ugu muhiimsan ku yaalla ciddii isku dayda inay indhaha ka laliso ama dhaaftaana dee xaqiiqaday ogaan doontaa way gargaran tahay anagu laakiin wax taanaka iyo walwala iyo maxaad halkan idinka soo raadina maxaad kan u imaan weydo iyo midna arrimahaasuu naguma kulula xaqiiqadana in badan madaxda dalalka aad sheegaysana midaanan wada fadhiisanan amaanan agamaana ka wada socon arrimaha qaarkood ma jiro way wada dareensan yihiin way wada og yihiin xaqiiqada way og yihiin laakiin waa loo taado annaga shuruuc international oo iminka nalagu gudbayo oo nalaga hordhigayaa jirta oo ciidamada iyada iyo daldibada iyadii wariyada iyadii lagu fakir gelinayo waa mid iska dhammaanaysa taasuu meela ku salaysan tahay laakiin way wada qiran yihiin waanuna ka wada hadalnay dhammaantood waa tahay marka laga hadlayo ammaanka xeebta badda cas Somalilandna aynu ognahay badda cas dherarkeedu inta uu maro idinka sharciyadan caalamiga ah ee idinka reebaya ma idinkala hadlay idinku ma kala hadasheen wax meel ma isla dhigteen maadaama Somaliland aan la aqoonsan qaab aad uga qayb gashaan waran ka hadlay hay'adaha ku shaqeeya UN-ka iyo waxaasuna way ogyihiin dadka anagu inaanu badisho Somaliland ay tahay Somaliland baa ilaaliya oo Somaliland ciidamadeeda iyo dowladeeda ilaalisa saasana caalamku kula cooperate kula shaqeeya
gacan baana laga siiyaa xagga ciidamada iyo maxayto badbaadinta badda iyo ilaalinteeda sidaas darteed baa lagu aqoonsan yahay oo aan dee looga socda marka wax walwala naguma hayso laakiin xaqiiqada waa soo imaanaysa waa yaro ilkabodi waa jiraa oo iminka looga dhigayo inaanan laleeyahay anagu siraad ma haysataan wadaasini laakiin xaqiiqada ciidamo ka boodi kara meesha waa imaanaysaa waana jirtaa marka haddii ciidamo ammaana la sameeyo oo xeebta la ilaaliyo oo kale oo dee idinkana aan laydinka soo qayb gelin idinku marka maxaa ka yeeraysaan daddan annagaa xukuna intaa anagu aanu leenahay annagaa xukuna ciidan kaloo iska imaan karayo oo anagu aanan raalli ka ahayn ama aanan ku jiran ama qayb ka ahaynna ma dhici karayo sidaa daraaddeed daddaas doonaysaa samaynaysaa inaanu anagu iska kaasano ayaa loo baahanaya saacadda wasiir su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay adigoo iga raadliya waktiga aad siteen aan aada kugu mahadnaqayo wakiilkii u fadhiyey somaliland ethiopia ee hore waa kii howlgabay noqday muddana waa ka dambeysay ilaa iminkana lama keenin wakiil cusub wakiilkii ma soo socdaa wasaaradda arrimaha dibadda ee ethiopia ma ka wada hadasheen ma madmadow ayaa jira si wanaagsan baan uga hadlay maanta si xad baan uga hadlay wuu soo socdaa sidaasaan dawladda ethiopia isku ognahay way bedeleen waa wax caadiya wakiilkii hore halkan u joogay da ahaan ayuu ku hawlgalay oo malaayagu sharci u leeyihiin sidaasaa lagu kaxeeyo o lagu bedelay kii lagu soo bedelayana wuu soo socdaayo waa la xilayaao si ay loo cadeeyeen dawladdu shaqadiisii iyo shaqadii halkan ka socotay qunsuliyadana si caadiya iyo sidii awalbaa u soconaysa loo socota kaasi waxau ahaa brofesor yaasiin maxamuud xiir faratoon waxa uu khadka telefoonka ee magaalada hargeysa ugu warramay wariyayga cabdixaafid cawil ismaaciil